nolol aan hadaf lahayn ma laha wax micno iyo qiimo toona marka loo eego muhiimadda ay higsiyadu u leeyihiin nolosha qof kasta. noloshaada xakamee waa buugga aan halkan ku korfayn doono, waxaana qoray Dr. Ibrahim Al-Fiqi, wuxuuna ku sharxayaa sababaha dadka ka hor istaaga inay samaystaan ahdaaf iyo weliba hababka ugu muhiimsan ay u samaysan karaan ahdaaftooda nololeed. si aad wax badan uga ogaato nala dhammayso muuqaalkan kooban. mahadsanid. haddaba maxaa dadka qaarkood ka hor istaaga inay samaystaan ama ay degsadaan himilooyin? Dr. Ibrahim Al-Fiqi wuxuu buuggan dhexdiisa ku qeexayaa 5 sababood oo ka dambaysa inay dadka qaarkood qeexi waayaan yoolalka ama ahdaafta ay ka leeyihiin noloshooda. haddaba maxay yihiin caqabadahaasi? 1. cabsida. cabsidu waa mid ka mid ah sababaha ka hor istaaga dadka qaarkood inay ahdaaf samaystaan, maxaa yeelay waxay ka baqanayaan mustaqbalka, waxay ka cabsanayaan jawaab celinta uga imaanaysa deegaanka ama dadka ay ku dhex nool yihiin. waxay dareemayaan cabsi meel ay ka socoto aan la ogeyn. waxay kaloo cabsi ka muujinayaan inay ku fashilmaan ahdaafta ay degsadeen. dhammaan cabsiyadaas kala duwan waxay ka mid yihiin sababaha ka hor istaaga in dadku ay hadaf cad ka samaystaan noloshooda. 2. aragtida wareersan ee nafta. liidashada. dareenka liidashada iyo kartidarrada guulgaarista ee uu noloshiisa ka aamino qofku waxay horseedaa inuu yeelan waayo hadaf ku aadan noloshiisa. aaminsanaanta in guusha gaaristeeda loogu talagalay keliya dadka caqliga badan iyo garaadka dheeraadka ah leh waxay caqabad ku tahay xaqiijinta iyo yegleelidda ahdaafta guulaha nolosha. 3. dib u dhigista. dadka qaar waxay u arkaan in noloshu ay dheer tahay, wakhti badanna ay haystaan, sidaas daraaddeed waxay dib u dhigtaan dejinta yoolalka nolosha, iyaga oo naftooda ka dhaadhicinaya inay wakhti badan haystaan ayna saas dib ugu dhigtaan waxyaabo badan oo ay xaqiijin lahaayeen. 4. aaminaad la'aanta ahmiyadda ujeeddooyinka. waxaa jira dad u malaynaya ama aaminsan in habka qorista yoolalka ay tahay wakhti lumis. marka waxaad arkaysaa iyagoo si kala sooc la'aan ah ama isku dhexyaaca u shaqaynaya, sidaas daraaddeedna aysan awoodin inay gaaraan himilooyin kasta oo noloshooda la xidhiira. aqoon darro. dadka qaar waxay rabaan in ay yool samaystaan, laakiin waxaa jira aqoon darro ka haysata dhanka dejinta ahdaafta, waxayna ka gaabsadaan inay ujeeddooyin nololeed samaystaan. haddaba sidee lagu gaaraa himilooyinka nolosha ama guulaha? markaan eegno aragtida qoraaga, waxaa jira 5 tiir oo muhiim u ah kaana caawin doona ka guulaysiga dejinta himilooyinka ama ahdaafta nolosha. tiirka 1. xiriirka Allah subxaanahu wa tacaala. tiirkan wuxuu kulansanayaa ama muhiim u yahay xiriirka Allah subxaanahu wa tacaala kala dhexeeya isaga iyo qofka, waxaana lagama maarmaan ah in qofku uu ku dadaalo inuu wanaajiyo xiriirka ka dhexeeya isaga iyo Allah subxaanahu wa tacaala. taasi waxay horseedaysaa inay u hagaagto qofka dhammaan dhinacyada kale ee nolosha, uuna xaqiijiyo ahdaaftiisii noloshan laga lahaa. iimaanku wuxuu qofka siiyaa awood uu kaga gudbo dhammaan culaysyada iyo caqabadaha nolosha. tiirka 2. xiriirka shakhsiyadeed. xiriirka aad la leedahay naftaada, qoyskaada, asxaabtaada, safarada aad gasho iyo fasaxyadaaduba waxay si weyn uga qayb qaataan xadididda iyo xaqiijinta ahdaafta iyo weliba gaarista guulo waaweyn. tiirka 3. xirfadda. waxaa lagama maarmaan ah qofku inuu leeyahay xirfad ama mihnad u gaar ah. xaqiijinta iyo dejinta ahdaafta waxaa ka qayb qaata door muhiim ahna ku leh xirfadda ama mihnadda. waxaa lagama maarmaan ah in qofku uu hormariyo xirfadihiisa xilliga uu waxbaranayo ama training uu qaadanayo. waxaana habboon in qofku uu helo ama uu tago tababarrada xirfadaha la xidhiira. tiirka 4. maadiga ama maaliyadda. xasilooni dhaqaale waxay door muhiima ku leedahay guulaha nolosha ee la gaaro. heerka dakhliga qofka, maalgelinta iyo mashaariicda la qaban karo in la hormariyo waxay muhiim ama lafdhabar u yihiin inuu qofku ku noolaado nolol deggan, wuxuuna si fudud ku gaari karaa himilooyinka nolosha. tiirka 5. caafimaadka. badqabka jidhka bini'aadanka wuxuu muhiim u yahay dhammaan nolosha qofka. waxaa muhiim ah in qofku uu xadido hadaf caafimaad uuna doonayo inuu gaaro. tusaale ahaan inuu qofku isweydiiyo sida uu iskaga beddeli lahaa dhaqamo xunxun oo caafimaadka la xidhiira, sida uu isugu dheelitiri lahaa ama u ilaalin lahaa isku dheelitirnaanta raashinka uu cunaayo, inuu ogaado miisaanka saxda ee looga baahan yahay, wakhti intee le'eg oo jimicsi ah ayaa la iiga baahan yahay, hurdo intee le'eg ayaanu baahanahay. waxay ka qayb qaadanayaan su'aalahaas iyo kuwa la midka ahba in qofka uu daryeelo naftiisa iyo jidhkiisaba, waxaana u fududaanaya xaqiijinta
ahdaaftiisa iyo himilooyinkiisa uu ka leeyahay nolosha. waxaan halkaas ku soo koobayaa korfayntii iyo soo koobistii kitaabkii saydir calaa xayaatik ama maareen noloshaada ee uu qoray Dr. Ibraahim Alfiqi. waad ku mahadsantahay daawashadaada.